walaal ma ogtahay inay sunno tahay? kow waxaa sunno ah in la guursado dumarka waaweyn. labo waxaa sunno ah in la guursado midda la furay. saddex waxaa sunno ah in la guursado haweeneyda laga dhintay. afar waxaa sunno ah in haweeneyda laga caawiyo howlaha guriga sida cunto karinta, nadiifinta, dhaqidda iyo wixii la mid ah. shan waxaa sunno ah inaad afka xaaskaaga gacanta geliso cuntada oo kale, taas oo muujinaysa jacayl lagu qiimeeyey qaab samafal ah. lix waxaa sunno ah in afka laga sheego jacaylka iyo qadarinta xaaskaaga. toddobo waxaa sunno ah in la cafiyo qaladkeeda. sideed waxaa sunno ah in naftaada aad ku ilaaliso in xaaskaaga aad u noqotid mid macaan. waxaa sunno ah inaad isku daydo inaad ogaato dareenka xaaskaaga oo aad u qalbi qaboojiso iyada marka ay u baahan tahay. toban waxaa sunno ah inaad xaaskaaga la ciyaarto oo aad waqti fiican la qaadato, wada baashaal, tartan, sheekaynta, wadaagista farxadda, munaasabadaha iyaga ayaa ah tusaalooyin si fiican loo yaqaan. 11 waxaa sunno ah inaad u fadhiisatid oo aad ku nasato laabta xaaskaaga. 12 waxaa sunno ah inaad xaaskaaga ugu yeerto magacyo qurxoon. 13 waxaa sunno ah inaadan u soo bandhigin arrimaheeda gaarka ah xubnaha kale ee qoyska iyo saaxiibadaada. 14 waa sunno in la jeclaado oo la ixtiraamo waalidkeed. haddii aad muuqaalka ka heshay like dheh, sidoo kalena aragtidaada ka dhiibo si uu dad badan noogu gaarana noo sheer garay muuqaalka. mahadsanid.